farxaday noo tahay maanta in aan isla joogno xaruntii dhexe ee xisbiga UPD. xisbigaani qofka hadda isdiiwaan geliyay saacan aan joogno iyo kii daraad isdiiwaan geliyey iyo kii fikirkiisa keenay isku miday u yihiin maanta. marka waa wax adigu aad wax ka leedahay qurxinteeda iyo xumaynteeda adaa iska leh. sida aad gujigaaga uga fikirayso oo aad libiskaaga uga fikirayso ayaan rabnaa ideolojiyadan la yidhaahdo UPD ay ximbaarsan tahay inaan uga fikirno. soo sax ma marba hadday tahay waxaan u nisbe sheeganaynay oo aan magaciisa aan magacyada ka dooranay oo aan mabaadi'da aan ka dooranay oo aan afkaarti kale aan ka dooranay oo xisbigan axsaabti kale aan ka dooranay ilaalintiisa iyo qurxintiisa annagaa nagala rabaa sidaan wejigaynu quruxsan lahayn. maxaa yeelay waxa aad ka tirsan tahay mar walba waxaad jeceshahay inay ka wanaagsan yihiin waxa kale. jaamacaddaad dhigata jaamacadaydaa ka wanaagsan, iskuulkaad dhigata iskuulladaasaa ka wanaagsan, guriga reer hebel asaa ka wanaagsan, baabuurkaa raacda baabuurta waa ka qurxoon yahay. soo saas maa UPD-na ayadaa wax walba ka fiican, axsaabta kale waa ka fiicanna. maxaa yeelay annagaa ah waxaa la rabaa qofka hadda wadaad qur-aanka noo akrinaayo sheekh ismaaciil waa magaciisa sheekh cabdullaahi. maanta cabdullaahi aan bartay aniga kaydkayda waxaa ku soo kordhay wax shala ka maqnaa. maxaa yeele cabdullaahi aan barta maanta adiga maanta yuusufaad barata maanta kaydkaaga maanta waxbaa ku soo kordhay. haddii laakiin gurigaaga aad joogi laheedood cambuulada hooyada iskala cuni laheedood dugsiga iska joogi laheedood iskoolka iska tegi laheed iska noqon laheeday aan mi bare laheed anna kuma barteen. ahmiyadda axsaabta iyo isutaga iyo tiimamka ay leeyihiin taasaa ka mid ah. maxaa yeelay qofka waxa uu galo iyo waxa uu gudo waxaa la gara karaa markuu dad wax la qaybsado ayaa la gara karaa. haddii kale markuu iskuulkiisa iyo gurigiisa iyo shaqadiisa uu ku egyahay lama gara karo. sidaa darteed marka waxa aad jeceshahay adiga waa inaad la jeclaataa walaalkaa la jeclaataa. xadiidkii rasuulka maxamed alayh salatu wasalaam laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih. axad iimaan dhaba laga hela ma jiryo ilaa uu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecelyahay walaalkiisina uu la jeclaada la rabaa. haddaad jeclaata marka inaad ka mid noqoto xisbiga UPD inaad ka mid noqoto haddaad jeclaatay la jeclow saaxiibkaa la jeclow kan walaalka ah la jeclow ugu yeer ee waxaad tidhaahdaa kaalay aan ku biirno xisbiga UPD. xisbiga UPD sida ciise ka dhawaajinayey dalkan dadaan weligood ka tegin ayaa bees u ah. wixii jaamacada aad maqlayseen iyo wixii iskuulo la maqlaayey iyo wixii rafaad la maqlaayey wixii dowladin la maqlaayey dadkii soo dhex taagnaaya bees u ah ayaa mas-uul ka ah. taas waxay nagu kalifaysaa marka dhakhtarka marka loo tegaayo adigoo caloosha ku xanuunayso ma aadaysaa dhakhtar madaxa daaweeye waa maya. mid cidaamka lafaha daaweeyana ma raadinaysid. maxaad u tegaysaa mid baadini ah oo caloosha daaweeya u tegaysaa. maxaad ugu tegaysaa cudurka caloosha hayou yaqaanaa. soo ma garan cudurka dalka ka jiray marka cidda gara karto ayaa ku habboon inaan wax la wadaaga. maxaa yeele saacadda aan la joogaan wax ka kororsanaya. soo ma garan waxaa marka laga maarmaan ah in aan xisbigayna gaarsiino mustawaa aan rabno. xisbiga adiga aad ka mid tahay aniguna aan ka mid ahay maanta aniga adiga waa u simanna. marka waa inaan gaarsiinaa waxa aan damacsanna waa inaan gaarsiinaa. guddoomiyaha mar kastoo hadlaayo wuxuu yidhaahdaa hadafkaynu maahan 2022 inaan ku gaarno doorasho inaan ku gaarno hadafkaynu maaha. waa laga soo gudbay in wax layska dhexlaa la rabaa. in wax layska dhexlo ayaa la rabaa. inuu noqdo cunuga hadda dhala doono meesha uu ku soo biiri doono u aadi doono waxaan rabnaa inuu noqdo UPD marka anna waa ka tegaa xasanna waa ka tegaa ciisena waa tegaa hebelna waa tegaa adaa u soo harayso adigu markayuusan kaa xumaanan quruxso. aad iyo aad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.